marka leh iyo barnaamijkii wararka maanta qodobadaan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Israa'iil oo qiratay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan 20 askar iyo saraakiil isugu jira kadib dagaalo gacmaha la isula tagay oo ka dhacay koonfurta Lebanon qasaarahan waxaa ka mid ah dhimashada taliya guuto iyadoo xilligan ay socdaan dagaalo culus ciidamada Israa'iil oo ka jawaabaya jugtan culus ee soo gaartay ayaa fuliyay duqeymo culus ku dhawaad 30 qof ayaa lagu dilay deegaano kala duwan oo ku yaal waddanka Lebanon wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska iyo safiirka Mareykanka ee Israa'iil oo si iska soo horjeeda uga hadlay dagaaladan ka soconaya Lebanon waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladan iyadoo Israa'iil maanta ay u tahay maalin barordiiq iyo tacsiya sida uu sheegay madaxweynahooda Herzog wadahadaladii lagu waday in maanta Switzerland ay ku yeeshaan ergooyinka Iran iyo Mareykanka ayaa baaqday ciidamada Taliban oo duqeymo ka fuliyay gudaha Pakistan in ka badan 10 qof oo dhimasho dhaawac ka soo gaaray weerar culus oo xagga cirka ah oo Ruushku ku qaaday gobolo ka tirsan waddanka Ukraine xubinta falaqaynta ee barnaamijkana waxaynu ku eegaynaa malafka gantaaladu waxay ahaayeen waxyaabihii marmarsiyaha ee loogu qaaday duulaanka waddanka Iran haddaba arrintaasi waxay ka maqan tahay wadahadallada iyo heshiiska dhex maray labada dhinac maxay tahay sababtu waan eegi doonaa dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada marka la daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka maanta waxaynu ku bilaabaynaa colaadda Xisbullah iyo Israa'iil iyadoo lagu soo waramayo dagaaladii shalay galinkii daba bilowday ilaa iyo xilligan inay soconayaan waxaana lagu soo waramayaa in dagaaladu ay yihiin kuwo gacmaha la isula tagay isla markaasna si xun la isugu reeqmay wararkii ugu dambeeyay taliska ciidanka Israa'iil ayaa qirtay Gordowit in looga dilay 4 askari oo uu ku jiro taliya sare laguna dhaawacay 17 kale kadib dagaalo culus oo ka dhacay koonfurta Lebanon kuwaasi oo lagu tilmaamay qaar ka mid ah qasaarihii ugu xoogganaa ee Israa'iil ay kala kulantay gobolkaasi toddobaadyadii la soo dhaafay bayaan uu soo saaray militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in 4 askari la dilay ay ku jiraan saraakiil waxaana ka mid ah taliyihii guutada 52 ee qaybta 401 ee ciidamada gaashaaman ciidanka ayaa sheegay in gaashaan la dhexe Dawar Jadali Ben Samhun oo ahaa 32 jir oo ku dhintay isaga iyo 3 kale kadib markii la beegsaday taangi ay saarnaayeen xilli howlgal military ay ka wadeen koonfurta Lebanon sida uu baahiyay raadiyaha ciidanka Israa'iil taangiga guutada 52 ayaa qayb ka ahaa ciidan dagaal oo ay hogaaminaysay guutada Jifate kaas oo ka howlgelayay deegaanka Maniif ee koonfurta Lebanon baaritaano horodhaca ayaa muujinaya in taangiga nooca markaafaha lagu weeraray gantaal lahago ama diyaarad aan duuliye lahayn oo laga soo buuxshay waxyaabaha qarxa ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in habeennimadii la soo dhaafay sidoo kale ay jireen dagaallo iyo iska horimaadyo culus oo ay la galeen ciidamada Israa'iil warbaahinta waxay sheegtay in 17 askari ee dhaawacmay ay ku dhaawacmeen weerar kala duwan oo ka dhacay koonfurta Lebanon waxaa ka mid ah weerar ka dhacay meel ku dhow deegaanka Kavartebnit warka ayaa intaa ku daraya in sarkaal ka mid ah ciidamada kaydka iyo 4 saraakiil hoose oo ka tirsan ciidamada gaarka iyaguna ay dhaawacmeen intii lagu jiray dagaaladii ugu dambeeyay hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa dhankeeda waxay sheegtay in sarkaal sare oo ka tirsan qaybta 36 ee ciidanka Israa'iil uu isna ku dhaawacmay dagaaladii xalay dhacay
ururka xisbullah ayaa shaaca ka qaaday inay khasaare dhimasho dhaawac isugu jira u geysteen tiro askar Israa'iiliin ah isla markaasna ay burburiyeen 3 taangi oo ah nooca Merkava kadib weerar gaadma ah oo lagu qaaday ciidamo isku dayay inay gudaha u galaan buuraha Cali Daahir ee koonfurta Lebanon. bayaan ururka uu soo saaray ayaa lagu sheegay in dagaalamayaashoodu ay arkeen ciidamo Israa'iiliin ah oo ka koobnaa cutubka gaashaaman iyo cutubka lugta ah kuwaasoo isku dayay in ay u gudbaan dhinaca waqooyiga ee buurta Cali Daahir kadibna lagu beegsaday halkaasi waxaana la sheegay in loo geystay khasaare culus. ururka reer Lebanon ayaa intaasi ku daray inay wadaan duqeymo gantaal ah iyo madaafiic culus oo lagu beegsanayo ciidamada Israa'iil. bayaan kale ayaa lagu sheegay in ciidan labaad oo Israa'iiliin ah oo isku dayay in ay daadgurayaan meydadkii dhaawac iyagana lagu bartilmaameystay gantaalo iyo madaafiic waxaana la xaqiijiyay khasaare toos ah inuu soo gaaray ciidanka sida ay sheegeen xisbullah. war kale oo xaaladan la xiriira wakaaladda wararka waddanka Lebanon ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil tan iyo waaberigii maanta duqeymo waaweyn ay ka geysteen tuulooyin iyo magaalooyin ku yaala koonfurta Lebanon kuwaasi oo sababay dhimashada 24 qof iyo dhaawaca tiro ka sii badan. dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto sida lagu sheegay warbixinta wakaaladda wararka Lebanon. duqeymahan xooggan ayaa xoogooda waxay ka dhaceen gobolka Nabatiya. dadka la dilay waxaa ka mid ahaa 8 qof oo ku geeriyooday magaalada Xaruuf, 4 qof oo lagu dilay deegaanka Ashaamiya oo u dhaxeeya magaalooyinka Al-Sharaqiyah iyo Al-Duwayriya iyo 3 qof oo iyaguna lagu dilay magaalada Kafarsiir. sidoo kale waxaa la soo sheegay in dhismayaal kale waxyeello ay soo gaartay. duqeymihii maanta dhacay ayaa loo arkaa kuwii ugu bacnaa ee ka dhaca koonfurta Lebanon tani markii la shaaciyay heshiiska Mareykanka iyo Iiraan ay gaareen ee xabad joojinta ay qaybta ka tahay Lebanon. dhanka Israa'iil waxa ay soo taraya falcelinta ku aadan khasaarahan culus ee ciidanka Israa'iil soo gaaray iyadoo la sheegay maanta inay tahay maalin baroordiiq iyo tacsiya. wasiirka xag jirka ee amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay tahay wasidoo u dhigaya in Lebanon oo dhan ay gubato. Ben-Gvir ayaa waxa uu yiri iyadoo la ixtiraamayo Mareykanka Israa'iil waa inay dunida oo dhan si cad ugu xaqiijisaa inaanay tanaasul ka samayn doonin dhiigga carruurteeda iyo amniga muwaadiniinteeda. Lebanon oo dhan waa inay gubataa. wuxuu sidoo kale ugu baaqay ciidamada Israa'iil inay cadaabta ku furaan Lebanon isla markaasna ay sii xoojiyaan howlgallada military ee ka socda dalkaasi. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa isaguna waxa uu sheegay in Israa'iil ay u tahay subax aad u xanuun badan kadib markii militariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen dhimashada 4 askari oo lagu dilay dagaalada ka socda koonfurta Lebanon. dhankiisa wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa ku baaqay in la xoojiyo howlgallada military ee ka soconaya Lebanon. qoraal uu ku daabacay baraha bulshada internetka ayaa waxa uu ku yiri waa subax adag saaka waxa la joogaa waqtigii dab culus lagu qaadi lahaa jahanimana lagu furi lahaa Lebanon. isla wararkan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean-Noël Barrot ayaa sheegay in Israa'iil ay tahay inay joojiso colaadda ka socota Lebanon isagoo ugu baaqay Washington inay cadaadis saarto Tel Aviv. waxaa sidoo kale uu sheegay in gobolka xasilooni uusan noqon doonin ilaa wadahadallada Mareykanka iyo Iiraan ay keenaan xal la xiriira barnaamijka gantaalada balastiga ee Iiraan iyo taageerada ay siinayso kooxaha xulafada la ah. geesta kale safiirka Mareykanka Israa'iil u fadhiya Mark Huckabee ayaa ka farceliyay hadallada wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ee ku saabsan xaaladda Lebanon waxaana su'aal uu geliyay xogta Paris ay ka hesho colaadda ka taagan xadka Israa'iil iyo Lebanon. Huckabee ayaa waxa uu yiri Faransiisku dhammaan xogtiisa ma wuxuu ka helaa Xisbullah isagoo xusay in 4 askari oo Israa'iiliin ah lagu dilay koonfurta Lebanon laakiin safiirku wuxuu ka gaabsaday in maanta la dilay ku dhawaad 30 qof oo reer Lebanon ah inuu ka hadlo. isla wararka Israa'iil Yair Lapid oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu cara ka muujiyay wasiirada Israa'iil ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir intii lagu jiray
shir jaraa'id halka wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar uu ku dhawaaqay in xiriirkii uu jaray madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Kallas. Lapid ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kale uu eedeeyay Netanyahu gaar ahaan inuusan mas'uuliyad ku dhaqmin marka la duqeynayo Lubnaan isagoo ka digay in inta xukuumadda Netanyahu xilka ay hayso ay u horseedi doonto sii xumaanshaha xiriirka dibadda ee Israa'iil. waa Lapid hadalkiisa waxaana uu yiri haddii aynan si degdeg ah u bedelin xukuumaddan xiriirka dibadda Israa'iil wuxuu noqon doonaa mid burbura. وهجاج وركع ستاس أينو كجب جذبنا بالمكان أينو أجنو قضبضة كلا وركع معنتا كتير وجيران لبقف أيا لجودي لبكرنا ويكون عوامين كدمركي روشكو قبل كالسومي وقوي جبري يوكرين وكوك عادي ويرلو عادي سدي بمبانوية ديارها عن دوريها الهين هي قتالو سيدا معنتا وشيغي تاليسكا بوليسكا يوكرين sidoo kale 9 qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii Ruushka duqeymaha uu ku garaacay magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine sida Telegramka uu ku qoray duqa magaalada Kharkiv Igor Terehov. xagga Afghanistan iyo Pakistan ciidamada Afghanistan ayaa duqeeyay goobo fariisimo ay ku lahaayeen dagaalamayaal lagu sheegay in magac diimeed ku dagaalamayaan oo ku kala yaal 2 gobol oo ka tirsan Pakistan sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Taliban ee dalka Afghanistan. arrintan ayaa abuurtay xiisad cusub oo u dhaxaysa labada dal muddo bilahna colaad ay ka dhex aloosnayd. fariisimada la beegsaday waxay ku yaalaan gobolada Balochistan iyo Khyber Pakhtunkhwa ee Pakistan kuwaasi oo xuduud la wadaaga Afghanistan. wasaaraddu waxay sheegtay in ciidamada cirka Afghanistan ay weeraradan fuliyeen habeennimadii xalay sida lagu sheegay bayaan ciidamadu ay soo saareen. waxaan u gudbaynaa gordhow wararkii ugu dambeeyay ee amuuraha xiisadda ka dhex aloosan Iiraan iyo Mareykanka. wadahadaladii lagu waday maanta inay ka bilowdaan waddanka Switzerland ayaa baaqday. hay-adda xakamaynta hubka nuclearka oo iyana soo saartay war la xiriira arrimaha Iiraan iyo Xuutiga oo iyaguna soo hadlay. sidoo kale waxaynu eegi doonaa xubintii faraqaynta. hayo dhawaada mar kale daawadayaal jimca mubaarak ayaana dileenahay meel walba aad joogtaan. wari waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad. wadahadaladii lagu waday maanta inay ka bilowdaan waddanka Switzerland isla markaasna ay isku arkaan wafuud ka kala socota Iiraan iyo Pakistan ayaa baaqday. raali ahaada waa Iiraan iyo Mareykanka. Pakistan way dhexaadinaysay. dawladda Switzerland ayaa ku dhawaaqday in wadahadaladii la qorsheeyay maanta inay ka furmaan waddankaasi in ay dib u dhaceen. ujeedaduna waxaa lagu sheegay inay ahayd in heshiis kama dambaysa labada dhinac ay ku dhawaaqaan. bayaan ay soo saartay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Switzerland oo ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxaa lagu sheegay in wadahadaladan la qorsheeyay ay dib u dhaceen sababo lagu sheegay diyaar garowga oo markaasi imika socda. go'aanka ayaa yimid saacada kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu baajiyay booqasho uu ku tagi lahaa Switzerland si uga qayb galo wadaxaajoodada la xiriira wejiga xiga ee wadahadalada. afayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in habraaca iyo abaabulka wadaxaajoodadu aysan ahayn kuwa sahlan ama la saadaalin karo. waxaana la xusay in madaxweyne ku-xigeenka hadda uusan u ambixi doonin halkaasi. lama oga cidda Mareykanka u madari doonta. war arrimahan la xiriira xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee dhaqaaqa Ansaarullah ee Xuutiyiinta loo yaqaan Ali Al-Imaad ayaa sheegay in heshiiskii dhawaan dhex maray Washington iyo Tehran uu yahay qirasho cad oo Mareykanku u aqbalay guuldarro siyaasadeed iyo mid military oo ka soo gaartay dagaalka gobolka. Al-Imaad ayaa Al Jazeera waxa uu sheegay in waxa uu ugu yeeray dhidabkada iska caabinta ee ku jira dagaalka barakaysan uu awoodin u leeyahay mustaqbalkana awood u yeelan doono inuu xakameeyo waxa uu ku tilmaamay gardarrada Mareykanka iyo Israa'iil. wuxuu sidoo kale sheegay in xukuumadda Netanyahu uu hogaamiyo aysan ogolaan doonin in qodobada heshiiskaasi ay dhaqan galaan isagoo ku eedeeyay inay doonayso inay gobolka geliso xaalad qalalaas ah si loogu adeego mashruuceeda isballaarinta dhuleed ee Israa'iisha weyn. Al-Imaad ayaa intaa ku daray in maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aan waxba iska bedeli karin xaqiiqda cusub
ee Yemen marka loo eego gaar ahaan gacan ku haynta marin biyoodka muhiimka ee Bab el-Mandab isagoo sheegaya in Yemen si buuxda ay u dhigtay in markaa ay tahay cashar Mareykanku uu ku wara qaato. dhanka kale agaasimaha guud ee hay'adda IAEA Rafael Grossi ayaa sheegay in hay'addu ay isku diyaarinayso inay dib u bilowdo kormeerka goobaha nuclear-ka Iran isla markaasna ka qayb gali doonto wada xaajoodyada ku saabsan heshiiska dambaysa oo ay gaaraan Mareykanka iyo Iran. Grossi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in arrimuhu wali u baahan yihiin xalinta goobaha kormeerka inta waxa uu sheegay arrintaasi laga shaqeynayaan hay'addu inay isdiyaarinayso waxaana uu tilmaamay inay diyaar u yihiin in ay ka howlgalaan Iran gaar ahaan inay kormeeraan xarumaha lagu bacrimiyo uraniumka. haatan waxaynu soo gaarnay xubintii faraqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga dagaalka istiraatiijiyadda ciidanka diblomaasiyadda sirdoonka iyo sidoo kale siyaasadda. xubintan waxaynu sidoo kale ku gorfaynaa waxyaabaha waaweyn ee warbaahintu ay qorto ama ay baahiso. xubintan maanta si gaar ah waxaynu ugu eegaynaa malafka gantaalada wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii dhaliyey in duulaan lagu qaado Iran oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ka dhigteen marmarsiyaha laakiin malafkaasi uu ka maqan yahay hadda faylka wada hadalada lagumana soo darin 14 qodob ee dhex maray labada dhinac. haddaba sidee wax u jiraan aynu eegna warbixintan gantaalada balastiga ee Iran kuwaasi oo ka mid ahaa waxyaabihii Mareykanku qiilka uga dhigtay in uu ku duulo Iran isagoo kaashanaya Israa'iil ayaa waxay ahaayeen faylka sida weyn uga muuqday in markaa duulaan lagu qaado wadanka Iran laakiin heshiiskan hadda waxaa ka maqan qodobkaasi. qiyaastii 3 maalmood ka hor intii dagaalka aanu qarxin waa 25kii bishii February Trump wuxuu adeegsaday isagoo ku jiray khudbadiisii qaranka ee Mareykanka in uu taageero u helo mowqif ka dhan ah Iran isagoo ku eedeeyay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran inay doonayso inay horumariso awoodda gantaaladeeda kuwaasi oo ku tilmaamay inay qatar ku yihiin dhulka Mareykanka iyo xulafadiisa. Trump ayaa xilligaasi wuxuu sheegay in Iran ay horumarisay sida hadalku uu yiri gantaalo qatar gelin kara Yurub iyo saldhigyada Mareykanka ee dibadda isla markaasna ka shaqeynayso gantaalo dhawaan gaari kara Mareykanka isagoo barnaamijka gantaalada Iran ku tilmaamay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee lagu cadaadinayo maamulka Iran. si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa la kulmay isbedel muuqda kadib 4 bilood oo dagaal ah iyadoo Trump arbacadii ku dhawaaqay inuusan waxba ka qabin oo uusan diidanayn Iran inay yeelato tiro xadidan oo gantaalada balastiga ah isagoo kala saaray faylkan iyo barnaamijka nuclear-ka. hadallada madaxweynaha Mareykanka ayaa yimid xilli qodobada ilaa iyo hadda la shaaciyay ee heshiiska xabad joojinta u dhaxeeya Tehran iyo Washington kaas oo Pakistan ay dhexdhexaadisay aysan ku jirin wax tixraac ah oo ku saabsan burburinta ama xaddaad guud oo lagu sameeyo masaafada gantaalada Iran. Iran waxay xaq u leedahay inay yeelato qaar ka mid ah gantaaladeeda ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka isagoo dadka wararka fidiya la hadlayay intii uu ka qayb galayay shirka G7 ee ka dhacay Faransiiska. Trump wuxuu ku tilmaamay ka mamnuucidda Iran ee gantaalada plastiga mid aan cadaalad ahayn isagoo yiri haddii dalal kale ay leeyihiin ama ay haystaan wax yar ayaa iyaguna markaasi xaq u leeyihiin inay samaystaan oo wuxuu yiri waa cadaalad darro in la yiraahdo iyaguna ma yeelan karaan gantaalada. dhinaca kale Tehran ayaa mar kale ku celisay in barnaamijkeeda gantaaladu aanu ahayn mid laga wada hadli karo wada xaajood kasta oo mustaqbalka dhex mara Mareykanka iyo Iran ama cid kale. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Ismaaciil Bakhai ayaa qamiistii wuxuu ku nuuxnuuxsaday in gantaalada Iran loogu talagalay oo kaliya in la rido barka la soo weeraro oo cadawgu wadanka ku soo xadgudbo. wuxuuna sheegay inaysan jirin wax wada xaajood ah oo arrinkaasi laga galayo isagoo carabka ku adkeeyay in awoodaha difaaca ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran aan looga hadli doonin nooc kasta wada kasta ama cid kasta aan lagala hadlin. Bakhai ayaa sidoo kale waraysi uu siiyay telefishinka dawladda wuxuu ku yiri gantaaladeenu haba yaraatee ma aha in laga hadlo
taas oo mar kale xaqiijinaysa mowqifka Iiraan ee diidmada barnaamijkeeda gantaalada in lagu soo daro heshiis kasta oo siyaasadeed ama amni. Iiraan ayaa marar badan waxay diiday in ay wax wada xaajooda ka gasho awoodeeda difaaca, inkastoo kaabiyaasheeda gantaaladu ay khasaaro soo gaareen intii lagu jiray dagaalka. Haddana waxaa jira warar tilmaamaya in awoodda gantaalada Iiraan 70% weli ay xooggan yihiin, isla markaasna la arkay khasaaraha ay geysan karaan. waxaana lagu sheegaa inay yihiin awoodda difaac iyo weerar ee Iiraan marka loo eego awoodda Mareykanka iyo Israa'iil ee xagga cirka, gaar ahaan diyaaradaha dagaalka ee casriga ee Mareykanka, kuwaasi oo inta badan loo adeegsado weerarada ka dhanka ah Iiraan. haddaba arrintan waxay ka macno tahay Iiraan inay ku guuleysatay mid ka mid ah hadafyadeedii oo ahaa in barnaamijkeeda gantaalada gebi ahaanba ay noqdaan kuwa aan inaba haba yaraatee wax gorgortana laga geli karin. waa hagaag intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta barnaamijkii wararka maanta, waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan. si aad ula socoto wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinno, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.